kooxda al-shabaab ayaa fagaara ku yaala deegaanka Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe waxay ku toogteen 5 qof oo ay ku eedeeyeen inay 3 ka mid ahaayeen jawaasiis halka 2 qof ee kale oo haweenay ahaa ay ku eedeeyeen inay ahaayeen kuwa dadka sixra sida qaadiyaal kooxda u hadlay ay fagaaraha ka sheegeen. toogashada kooxda ayaa ka dhacday fagaara ku yaala deegaankaas oo la yiraahdo fagaaraha Adan Cayro waxaana kooxdu isugu soo bixisay boqolaal dadweyne ah si ay toogashada u daawadaan. Xasan Maxamuud Maxamed Xasan Dheere waxay ku eedeeyeen inuu la shaqeynayay hay'adda la yiraahdo CIA Mareykanka. Labo Mahad Cabdulqaadir Aadan waxay iyadana kooxdu ku eedeysay inuu ahaa jaajus u shaqeeya dawladda Kenya. Cumar Cabdi Xalane isaguna waxay ku sheegeen inuu fududeeyay dilka saraakiil kooxda ka tirsan waana GPS uu ku rakibay guri saraakiishaas ay deganayeen oo ku yaala magaalada Jidib sidaasna lagu beegsaday. Xaawo Cabdul Macallin iyo Dhol Ciye Maxamed labadan haween waxay ku eedeeyeen inay ahaayeen kuwa dadka sixra dad ay sixreen ay geeriyoodeen. Waxaa la rumaysan yahay in dadkan kooxdu laysay aysan wax dambi ah galin laakiin loo dilay si loo sii adkeeyo xukunka kooxdaas sida ay qabaan falqayaal amni. Jubbada Dhexe oo koonfurta Soomaaliya ku taala oo ay Saakow ka tirsan tahay waa gobolka kaliya oo degmo ilaa deegaan ku hoos jira maamulka kooxda al-shabaab.